Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukun toogasho ah ku fulisay laba dhalinyaro oo lagu kala magacaabo Xasan Cali Xasan Xerow iyo Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow kuwaasi oo la sheegay inay horay u dileen nin nabadoon ahaa. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaana warbaahinta xukunkii dilka ay la fuliyay kadib la wadaagay qaabka raggani loo dilay iyo marxaladihii xukunkooda uu soo maray. bismillaah taariikhdu markay ahayd 3 bishii 8 2017 maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedeysanayaal 1 Xasan Cali Xasan Xerow 25 jir ah ina Edebo Xasan Ibraahim ku dhashay Bakool 2 Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow 22 jir ah ina Shukri Sheekh Siyaad ku dhashay Xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen taariikhdu markay ahayd 2 bishii 11 2016 dembigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 22 bishii 8 2017 gacan ku dhiigle shabaab Xasan Cali Xasan Xerow 2 gacan ku dhiigle shabaab Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha 1 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq.